batroolkii baa dhamaaday batroolka waa kan dukaankii waa kan subloribo plastic inkan ag taagan waa arkisiin waa tan iyaduna yani dukaamadan baa lagu iibiyaa batroolka lacagta halkan baa lagu ridaa hagaayar baa lagu ridayaa 6 rubi 6 rubi waxa weeye meelahaas half dollar marka laba xabo roodhi ay ku geynaysaa labada gurigan kalena xataa isagana qaxoontiga degan ka kalena qaxoonta degan yani wadadan waa caan dhalay baa qaxoonti ra'iislaha qaxoonti baa iska leh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Shakur 252 Vlogs. Waa muuqaal kaliya moto vlog. Waxaan ka sii baxaynaa gurigan deganay. Meeshan deganay. Ka motada waa arkaysiin batroolkii baa dhamaaday. So batrool ayaan ku soo shubaynaa hadda batrool ku shubileeday waxaan filayaa inaad arkaysiin halka ay boodboodaysa yani batroolka waa eber marka batrool ayaan ku soo shubaynaa hadii la yiraahdo la socod wacan oo wanaagsan batroolka halkeen kaga soo shubaynaa yani wadankan laba nooc ayaa batroolka loogu shubaa albaabka iska qabano laba nooc ayaa wadankan batroolka loogu shubaa so mid yani kaalmaha lagaga shubo iyo dukaamada imika ma arda guriga ka soo baxay inta uu jira dukaankan in batroolka kaga shubina inta uu jira dukaanka waa kan batroolka waa kan dukaankii waa kan soo batrool ayaan ku shubina la socod wacan oo wanaagsan asxaabta qaaliga meel kasta adduunka daafisa tacliisa ka joogtaan wadankan markaad batroolka ku shubisid lama yiraahdo inta soo litir igu shub waxa la yiraahdaa benzin subloribo lacagtan baad u sheegaysaa marka way kugu shubayaan yani intaad meel fog aadi lahayd aad meesha kaalinta batroolka tagi lahayd meesha intan inoo jirtaa okay batroolka saas inoo shubtay Modi tissue juga. Bensin 10.000, tissue 1. Kasih ada plastik. Plastik. soo saayre fudud batroolka ugu shubanaysa marka wadanka laba nooc ayaa batroolka loogu shubaa waxa weeye mid kaalinta kaga soo shubanaysid yani kaalinta hadii ka fogtay mootadii ma riixi kartid caagid kuma soo shuban kartid yani dib bay leedahay moogtay marka dukaamadan baa lagu iibiyaa dukaankan waa tan way hortaala dukaamo kale oo in cabaarisi jirana waa intu si doonaa iyagana sidaas leeg dukaan kasta oo hortaala ka dukaan kale waxa ganay intu si doona oo kaalintan oo kala agtaalo waa arkaysiin dukaamadu waa kuwan gaadhigan si qaldan buu laabay kaalinta waa arkaysiin meesha dukaanka batroolka wata way hortaala dukaanka kale waa kan ninkan ag taagan tahay meesha ninkan ag taagan yahay meesha ninkan ag taagan waa arkaysiin waa tan iyaduna yani dukaamadan baa lagu iibiyaa batroolka yani xagga aadi lahayd kaalintii oo ka fog oo ku taala wadada halbowlaha oo kale yani dukaamada ayaa hortooda lagu iibiyaa meelahan looqlooqyadan dukaamada hortaada gurigaaga hortiisa imika waxba isku ma jirin ba gurigan ka soo baxay waa kan dukaankiina waa kan waxba isku ma jiraan marka dukaamada ayaa lagu hor iibiyaa
labada nooc ayaa baatroolka wadanka loogu shubaa baabuurta ama mootooyinka badanaa baabuurtu iyagu waxay ku badan yihiin kaalmaha waaweyn bay tagaan maadaama iyaga baatroolkoogu uu fara badan yahay yacni mootada baatrool yaroo naqan baa isaga shubanaysaa markaa wadankan lama yidhaahdo intaasoo litir iga shub waxaa la yidhaahdaa lacagtaad rabtid intay tahay baa ku shubanaysaa yacni waxaan ku shubnay $1 wax ka yar markaa ilaa litir weeyaan $1 wax ka yar weeye litirku wadankiina dee waa iska ogtiin maciishadu way iska kacday markaa mootooyinkani baatrool badan ma cunaan ilaa kuwa wadankii yaala laakiinse dadkeena waxaa la jeclaysiiyey in baabuur ay isticmaalaan baabuurkii de intaasoo litir buu rabaa mashiinkii baa markiiba dhammaynaya baatroolka markaa yacni dani kugu qabatay baa la dhaho mootooyinkan inay dadkeenu iska bartaan iska isticmaalaan ayaa fiicneed maadaama baatroolku uu qaaliyoobay wadankan isagaa baatroolka isagu soo saarta meeshan yaro kale ayaan wax kasoo iibsanaynaa hadday taalo roodhi baan kasoo iibsanayaa muuqaal hore oon kasoo duubay may oolin markaa iminkaan bal soo eegna meeshaan meesha waa tan lacagta yar halkan baa loogu ridaa xaggaa yar baa loogu ridayaa $6 $6 waxa weeye meelahaas $1/2 markaa 2 xabo roodhi ay ku geynaysaa 2 xabo roodhidaan qaadanayaa markaa roodhidan waxaa sameeya Afghanistan baa sameeya gurigan waxa degan qaxoontiga iyaguna degan laakiin gurigan wax Soomaaliya ma degana kaliya waxa degan Afghanistan yani wadanka Afghanistan dadka soo jeedo qaxoontiga ayaa degan Soomaali degan ma jiro gurigan kaliya iyagoon baaba degan ba markaa roodhidana way ku sameeyaan subaxii bay ku sameeyaan subax hore ay ku sameeyaan markaa inta kala xaggan bay dhigaan lacagta yarna xaggaasaa loogu ridaa cid kaa xadaysa male cidna waxba ku fali mayso okay tanna xaggan yar iska sudo tishuugii hore wakaas halkaas sudhayay kanna waa ka daba sudhaysaa sidaan baa uga daba sudhaysaa so let's go gurigan kale xaggan aan idin tusi doonana isna waxa degan qaxoonti baa degan kana qaxoontiga degan waxa la yiraahdaa waa guriyuhu ugu horeeyay markii dadkan qaxoontiga meesha la keenay la furay marka gurigan waxa la yiraahdaa bugis baa la yiraahdaa wiilal Soomaaliya iyagu degan dabaqa labaad iyo dabaqa saddexaad bay kala degan yihiin marka sidaa weeyaan meeshan waa Indamaarad ama supermarket kolba sida u taqaadid gurigan kalena xataa isagana qaxoontiga degan ka kalena qaxoontiga degan yani wadadan waa caan dhalay baa qaxoonti raislaha qaxoonti baa iska leh oo wadadii qaxoontiga weeyaan meeshan badanaa waxa ku badan qaxoontiga ku badan ha ahaadaan Soomaali ha ahaadaan Afghanistan meesha yar qudaarta lagu iibiyaa soo asxaabta muuqaalkan waxaan idinku tusay qaabka mootadaada aad ugu shubi kartid baatrool markaa wadankan labada qaab ayaa baatroolka loogu shubaa mid dukaamada ayaa kaga shubanaysaa midna waxa kaga shubanaysaa kaalinta caadiga ee weyn ee fuel station ama kaalinta baatroolka markaa kaalintu way ka yara baatrool badan tahay kuwan iyagii baa ka yara way yara kala shaxaadayaan markaa imika $10 $1 wax ka yar weeyaan aduu waxoogaa bay noqon lahayd dhowr ilig bay noqon lahayd laakiinse meeshan gurigii ma soo gaadhnay asxaabta qaaliga aad iyo aad ugu maasantay daawashada muuqaalkan waa inoo yahay muuqaalka xiga insha Allah see you next time Hi.
Mm,